gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Ciro oo warbaahinta la hadlay waxa uu madaxweyne Biixi ugu hanjabay in aanu dalkan ku sii maamul doonin xoog iyo xabad waxaana uu taageerayaasha xisbiga wadani ugu baaqay in ay u diyaar garoobaan halgan iyo hawl adag oo uu sheegay in dalkan lagaga badbaadinayo maamul xumida madaxweyne Muuse Biixi waa sida uu hadalka u dhigay sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu cadeeyay in si aan ka noqosho lahayn ay u qaadiceen komishinka cusub ee doorashooyinka wax wada shaqeynna aan marnaba dhaxmari doonin gudoomiyaha oo ka hadlay arrimahan iyo arrimo kaleba waxa hadaladiisii kamid ahaa dhammaan shacbiga reer Somaliland iyo saxaafadda laba sano ka hor maanta oo kale 13 bishii 11aad waxa dalku shacbiga reer Somaliland u dareereen doorashadii saddexaad ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland shacbiga Somaliland waxay qabeen rajo weyn inay helaan hoggaan wanaagsan waxa uu muuqday in isbedel togan uu wadanka ka dhici karo ama ka dhici doono waxay filayeen inay dhalato xukuumad ka shaqeysa horumarinta nolosha dadka xukuumad ka shaqeysa jihaynta iyo shaqagelinta dhalinyarada waxay filayeen xukuumad ka shaqeysa xoojinta dimuqraadiyadda iyo aqoonsi raadinta Jamhuuriyadda Somaliland iyo xukuumad ka shaqeysa midaynta iyo wadajirkooda kuna dhaqda cadaalad iyo sinaan nasiib darrose laba sano ee Muuse dalka talada hayay dadkii reer Somaliland waxa ka muuqda rajo xumaan baahsan iyo dayow aanay garanaynin meel lagu wado maanta cabashada iyo yuhun xumaanta waxa ka sinmay dadkii doortay Muuse iyo kuwii aan dooran waxa soo baxday oo dhalatay xukuumad ninka hagaya ay ku adag tahay ku dhaqanka sharciga ay ka go'an tahay burburinta nidaamka iyo shuruucda walaalayaal baadi socda ama sumadda hogaaminta Muuse laba sano ee uu xilka hayay waxay noqotay sidan koow kala qaybinta iyo kala irdhaynta shacbiga reer Somaliland halkii uu ka midayn lahaa laba ku xadgudubka iyo ku tubashada dastuurka iyo xeerarka dalka isagoo waajibkiisa koowaad yahay ilaalintooda laguna dhaariyay waxa tusaale cad inoo ah in maanta golayaasha deegaanka Jamhuuriyadda Somaliland muddo xileedkoodu dhacay muddo kordhina aan loo samaynin sharciga aanay ku joogin dalka waxa ka mid ah saddex faragelinta nidaamka ganacsiga xorta ah ee uu jideeyay dastuurku afar xakamayn la'aanta sicir bararka halkaha goostay ee ragaadiyay dhammaan nolosha shacbiga reer Somaliland hoos u dhac weyn iyo dabaca ku yimid amniga gudaha taasoo sababtay inay ka dilaacaan markii ugu horeysay jabhado gudaha Somaliland xisbiga wadani hore u cambaareeyay jabhadaha ka samaysmay dalka gudihiisa mar labaadna waanu cambaaraynaa u adeegsiga lix u adeegsiga awoodda qaranka dana shakhsi ah oo ay ka mid yihiin dhulboob iyo ganacsi gaar ah toddoba caadaysiga ku tumashada xuquuqul insaanka caburinta xorriyadda saxaafadda madaxa bannaan xadhigga joogtada ah ee madaxda axsaabta iyo muwaadiniinta kala duwan sideed baahsanaanta maamul xumada iyo musuqmaasuqa maamulkiisa ka jira inay luntay sagaal kalsoonidii beesha caalamka ee dalkani ka sugayay اعترافك طبعا ميد بحاول دنبي يكال سيسدو waxaynu shalay dhammaanteen goobjoog u ahayn oo aynu indhaheenna ku arkaynay in hanaankii dimuqraadiyadda
iyo rajada doorashada Somaliland hal cad lagu gowracay horteenna iyo sida sayladda uga dhigeen golihii wakiilada Somaliland dhacdooyinkaas oo dhammi iyo qaar kale oo badan waxay tilmaan xun u yihiin hogaaminta Muuse Biixi ee saluuga salfudaydka iyo canaadka aan qiimaha ku fadhiyin isugu soo biyashootay isla markaana marag cad u yihiin tala xumada hoggaanka maanta jira haddii aynu sidaa ku sii soconno waxa jiritaanka Somaliland laga dooni doonaa qarannimadeeda meel fog ilaahay se kama dhigo walaalayaal haddii aanu soo noqonno ceebtii iyo foolxumadii shalay dhacday ee ahayd inqilaabkii golaha iyo afduubkii sharci ee la sheegtay in lagu ansixiyey xubnihii xeerka xaaraantinimeeyey ka mid noqoshadooda komishanka doorashooyinka qaranka waxaan mar labaad ummadda u xaqiijinayaa in xisbiga waddani aanu si aan ka noqosho lahayn u qaadacay la shaqaynta iyo ka mid noqoshada xubnaha la sheegay in la ansixiyey xisbiguna diyaar uma aha inuu xalaaleeyo ama jideeyo waxaan sharciga dalka waafaqsanayn arrintan ama arrimo kale waxaan ummadda u sheegayaa kow mar haddii aanu muuse xeer iyo xaagaantoona dhowrayn oo dastuurku ugu kow ka yahay mar haddii uu fulin waayey heshiiskii uu la galay axsaabta qaranka ee beesha caalamku goobjoogga ka ahayd oo aanu jirin dabar xidhayaaba mar haddii aanu talo iyo tusaale midnaba ka dhegaysanayn hay-adihii dastuurku furay ama waajibiyey la tashigooda oo ay ka mid yihiin axsaabta qaranku mar haddii uu ka baydhay habkii wada tashiga iyo dimuqraadiyadda ee qarankani ku dhisnaa mar haddii uu dhaqan iyo yool ka dhigtay kala qaybinta iyo kala irraynta bulshada reer Somaliland ee midka ahayd waxaanu muuse xasuusinaynaa inaanu dalkan xoog ku qabsan kuna haysan karin haddii uu ku sii wado canagsiga iyo sharci jiirka waxaanu u sheegaynaa inaanaan taag iyo talo midna u waayin toosintiisa ee aanu ku dhaqaaqi doonno tallaabo kasta oo qarankan lagu badbaadinayo waxaa shacbiga Somaliland ee sharafta leh u soo jeedinaya inay ilaashadaan midnimadooda wadajirkooda iyo amnigooda isla markaana diidaan kuna gacan saydhaan kala qaybinta iyo iska horkeenka shacbiga reer Somaliland ugu dambayn waxaan mahadnaq ballaaran u soo jeedinayaa taageerayaasha xisbiga waddani guud iyo dibadba waxaan farayaa inay u diyaar garoobaan halgan adag iyo hawl culus oo dalka lagaga badbaadinayo maamul xumada Muuse Biixi